haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qaxar iyo dhibaatiya malaa qulub ma joogeene qalalaase iyo may jireen qayladhaantani qabqab dhaafe waagii baryaba qiiq ma huriyeen qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay qodobka saddexaad een odhan karo waxa weeye waa tiirka taqadumkii horumarku waa alxuriya xuriyad gaalada iyo gaala raaca iyo kuwii wax ku akhriyeen ay tarbiyeen ay korciyeen ay naas nuujiyeen xuriyadda si kale u dhigaan waxaanay marmarka qaarkii u dhigaan inaanay diinteennu xorriyadba lahayn oo ay caburis iyo afka lagaga istaagayo inay leedahay la diintani iyadaa xorriyadda asaas u ah nidaam baanay xorriyadda u dhigtay iyo teed iyaguna waa u dhigeen oo asalba inagunbay inoo sheegaane adduunka raggii dee maray baa la fadhiyee xorriyad iska furan oo waxaad doonto aada samayn karta iyo waxaad doonto aada jebin karto waxa weeyaan ma jirta wax kastaa xeer bay leeyihin qolada qaanuunkuna waxbay idhaahdaan xorriyadaadu waxay ku dhammaataa markay walaalkaas soo gaadho oo haddaad halkaas ka marso tiraa gacanteedu banaankaas iska maraysaa deetana daankaasi ku dhacaysa gacantaadu way iska soo socon kartaa laakiin halkaa yay soo gaadhin intay banaankaa soo socoto cidi kuma haysato laakiin waa goorma waaye waddadaasi waan marayaa intaanay gurigeen maxamed soo gelin dee gurigaasi maxamed soo gasho waan garaacaya waayo imka xorriyadu ma haysto yay gashay marka xorriyad horta iska furan wax la yidhaha ma jirto islaam iyo gaalo toona xorriye kasta laakiin maxaa kala duwan quyuudda loo dhigaa kala duwan xorriyatulqowlkay sheegaan iyo xorriyatura'yigay sheegaan iyo waxaba quyuud bay leedahay nin madaxweynaha wuxuu doono ku odhan karaa ma jiro nin dastuurka wuxuu doono ka sheegi karaa ma jiro nin wuxuu doono ka hadli karaa ma jirto iska daa wax kale waa la socotaan caalamka waa dhegaysataane yurub markaad joogto yuhuudda ma soo hadal qaadi kartid holocaust iyo waa lana cadaabiye waa nala gubay ma odhan kartid soo caddeeya haddaa su-aal ma weydiin kartid waayo anti saamism wax la ydhaha mawduuc waxay dejiyeen qaanuun la ydhaha saamigu ka horjeeda marka xorriyadda islaamkuna waa xorriyad nidaamsan oo habaysan islaamku wuxuu xor kuu siinayaa imtilaag inaad mulkiyi karto dariiq sharciga wax ku mulkiyi karto wuxuu kuu siinayaa xorriyad alra'yi inaad ra'yigaaga gudbin karto laakiin ra'yi mundabita oo aan waxyeelo lahayn islaamku wuxuu ku siinayaa xorriyad alintikhaab oo dadka la yidhaahdo ahlulxalli walcaqdi ayaa wax soo doorta adiguna kuwaasaad dooranaysaa oo xaafadiina iyo qabiilkiina iyo waxaad iska dooranaysaa dadkii adiga ku mateli lahaa ahlulxalli walcaqdi baa la ydhaha islaamka iyaguna maxay sii dooranayaan ciddii ay doonayeen xorriyad fiican buu islaamku leeyahay waa xorriyadda gaadhay muslimka waa xorriyadda gaadhay yuhuudda waa xorriyadda gaadhay gaalada haddaynu sabankii nebiga u noqono salawaatu rabbi wasalaamu calayh dagaal dhan uu hogaaminayo ayuu nin u imanaya nebi allow halkan maxaad ku degtay ma ra'yigaaga mise waxyi hadday ra'yi tahay ra'yi maaha kani meel heblaaya ka wacan ma saas ahaa ina rara maanaad ila hadlaysa maanaad waxii sheegaysaa waxyigaa igu socdo sabaaxa masaa habeen iyo dharaar xaggaad adiguna ka timi ma odhanin wuu soo dhoweeyey xubaab ibnu mundir saaxibu mashhuuratayn 2 goor buu nebiga arrimo badan kala teliyey waxay gaadhay ninka caraabiga inuu iska soo kacu idhaahdo tilka qismatun maa uriida biha wajha allah qaybtan aad qaybisay ilaahay hortii may ahayn iyo icdil cadaalad samee khaalid baa canaaqo yidhi aan dilaya rasuul allah wuxuu yidhi lacalahu an yakuuna yusalli biluu tukanayaa buu yidhi biluu nin tukaday iska ammaan geli iska ammaan geli haddaba waa edab darro waa qalad nebi allah lagu leeyahay ittaqi allah muxaadaro loo akhriyaya attaqwa loo muxaadaraynaya yaa u muxaadaraynaya caraabi arrin saxa ma aha laakiin haddana daalac looma raacinoo jeel yaroo cidhiidhiya lama geynin soo xisaabiyo xagguu ka socdaa iyo yaa inagu soo diray mucaaradkeebu kaana lama odhan allahuma salli calaa maxamed tallaabo kaloo laga qaadayna ninkii yidhahan tallaabo ka qaadana waaba la difaacay maxaasin baa la sheegay lacalahu an yakuuna yusalli laga yaaba inuu tukanayo suu khaalid yidhi oo imisaa tukanaya ruba musallin laa khalaaqa lahu fii salaati oo imisaa tukanayo salaada shaqo ku lahayn nebigu wuxuu yidhi innii lam u'mar an anquba can quluubi innaasi walaa ashuqa buduunahum aniga qalbiyada inaan baadhbaadho iyo caloosha jeexo midna layma tirin saa ku daayo yuhuudday gaadhay oo madiine la deganayd heshiis baa lala saxeeday yuhuudi waa ummad min duuni innaas ummad gaar u taalla muslimiintuna waa ummad yuhuudi iyagaa ismaamulaya annaguna annaga ismaamulayna waxa naga dhexeeya haddii dhiig dhaco oo diya timaado iyo mag waan wada bixinaynaa haddii lasoo duulana
oo difaacanayna intaasaa naga dhexaysa wixii la isku qabtana nebi maxamed baa naga dhexeeya intaasaa lagu heshiiyey bes halkaa ku noolaada iyagaa diiday waa xorriyadda gaadhay mushrikiin sumaama ibnu usaal wuxuu ahaa nin suldaana muslimiinta collaha waa la soo qabtay geed waxa lagu xidhay tiirka masaajidka subax walba nebigu waa u yimaadaa waa maxbuus war maxaad war haysaa sula waxaan hayaa in taqtul daadam haddaad disho wax dee nin dhiig galay oo wax hore idinka laayay baad dishayoo wax weyn maad samayn waa in tuncim calaa shaakir hadday sii daysana nin abaalgudaa oo raga ayaad sii daysa waan ku abaalgudi wa in aradta almaala fasal ucdika haddaad xoolo doonaysa iyo madax furashana maxamed waan ku siin maxbuuska xataa saa u hadlayay adduunkee maxbuusku maanta saa u hadli karaa ya bacmadoobal madaxa lagu gelinaya goontanaba bay adduunka xaguu jira ma jiro runtii marka saas u hadlaya maxbuus waa la iska daayay wanaajiya la yidhi wax siiya maalinkii labaad buu nabigu soo maray jawaabtii intiibu ku celiyay saddexdii maalin saddexaadkii ayuu saddexdii ku jawaabay sii daayay mabuu fogaane show intiina qur-aanku dhegaysanayay ceel halkan uu ku soo maydhay waa shaato islaam qur-aankaa uu dhegaysanayay iyo dhaqankan iyo dhegaysigaa la dhegaystay iyo maadaa weliba saa u hadlay intaan rag naga laysa weliba saa u hadlaysaa war kidfa oo muqmadeeye lama odhan runtii markaa xorriyadduna xorriyad nidaamsanoo aan caburin lahayn dee dadkuna aanay tacadiyeyne weygooda la baro maxaa aniga ii suurtogala haddaan ahay ka sheekh maxaa adiga kuu suurtogala ka shaab maxaa kuu suurtogala ka suldaan maxaa lagu ogol yahay ka mura'a gabadh xaasa maxaa loo ogol yahay kan saxafiga waa in la ogaadaa nin walbaaba barta saanu isaga taraarin hadduu berri taraarana in tallaabooyin lagu edbiyo uu leeyahay laakiin cunaqabatayn maaha caburina maaha marka baaraka allah fiikum xorriyad waynu u baahanay mushkiladda caalamu saalif haysataana ninka meel yar qabsadaa wuxuu doonayaa inaan laga daba hadal maa uriikum ilaa maa araa tii fircoonun maaha ilaa maantay socotaa anaa idiin fikiraye maskaxdiina laalaabta maqsin ku rida aniga dabeetana anaa idiin fikiraya wax ra'yo leedin ma jirto waa mushkiladiina haysata qodobka afraad waxa weeye ama tiirka afraad ee taqadumkii horumarku waa alcamal walintaajiya camal iyo wax soo saar camal waxaan uga jeednaa camal addunya camal aakhiro weliba waxaan gaar uga hadlayaa ka aakhiro aad baynu ugu wanaagsannahay in yar baa inaga lunsanoo meelaha fadhida iyagana kolley caleentaasaa haysata ee mushkiladda ayaa haysata laakiin camalkeenna aakhiro waa wanaagsanyey halka aynu ka dhimanay baan taabanaya waa camalka adduunyo camalka adduunya inaynu ka dhimanayna waxaan filaya inaynaan ka doodeen waayo waxaa eegtaan waxaan tegey beri magaalo yaroo la idhaa harta sheekho berigii hore intaan wajaa la samaysmin ayay jirtay magaaladii waxa weeye 95kii kursi lagu fadhiisto waan ka waayay makhaayad kursi laba shaahi way hayaan kursiga waan ka waayay balidu ka sheekeeya ya dadku way shaqaynaya way ordayaan shaahna way qaataan way la socdaan waxaad ka muuqata meesha in la shaqaynayo inaga eega magaaladeena oo inta fadhida inta socotay shaqaynaysa intee badan inta fadhidaa badan waxaan aad uga naxaa barqada weliba casarkii waxa laga yaabaa nin soo rawaxay inuu yahay waad u cudurdaari kartaa barqa weyntii ayuu fadhiyaa 9kii iyo 10kii buu fadhiyaa 12 markuu arkaabuu kacayaao intaa uu sheekaynaya waxaasi adduun buu qaban lahaa dhir buu beeri lahaa sooma dhagaxaan buu ururin lahaa hadduu buurtaa tagu dhagaxaanta ururiyo iskarooyinka ugu meel la loo buu soo raran lahaa miyaanay maceebba hadhow intuu xamaamka soo maydho ayuu galabta iman lahaa isagoo adyaab soo dhalaalaya oo jeebaduna camireeyin macid baa ku taqaano goorta kii dhagax saa ka waday si fiican buu sheekayn lahaa laakiin kama sheekayn karo oo jeeb nin buu eegaya xataa sheekada ka qasmaysa dadkuna goormay ku dhegaysanayaan markaad ka maaranto haddaad laakiin isaga u baahan tahay sheekadaada wuxuu qaadan hadhowta inaad ku soo gabagabaynayso wax ii dhiib subxaana allahi alcadiim waayo culimmadeennii hore xataa iyagoo dadaalay may shaqayn jirin dabeetana waxay odhan jireen wacdi wadaad waxisiin baa u dambayn bal ka warran marka camalku waa sharaf nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay aad buu ammaanay imaadatul adaa waa maxay waa dhagax yaroo laga qaaday waa camal intee qaadanaya sikinuu qaadanaya waa la ammaanay waa camal waxaa la ammaanay nin geed laan yartaa uga jabiyey oo yidhi taniyo muslimiinta dhibin jannuu ku helay
gabadh intay ceel ku dhaadhacday xayawaan waraabisay aya ayaa janno ku heshay waa camal waxa la tilmaamay xadiis la yaab leh tirmidhi baa warinaya sheekh la yiraahdo maxamed qudub kitaab baa ka qoray xadiiska kaliya waa xadiis culimadeena aad uma soo qaataan waa xadiis saxiix albani ba saxiixiyay wuxuu oranayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ida qaamat alqiyama wa fi yadi ahadikum fasila fastada'a an yaghrisha falyaghrisha hadii qiyaamuhu kacayo qiyaamuhu haduu kacayo dhacayo baad arkayso midkiina laan yar u haysto uu ka gaarsiin karo inuu dhulka ku aaso oo uu beero ha beero waa mubaalaqa waxa leeraan ma ha qiyaamaha beer ma laakiin waa mubaalaqa goorma ugu darano adduun laga wabiye soo marka qiyaamu dhacayo ma qiyaamiyo halka ka soo dhacaya dad ka gaarsiin karta ka gaarsii waa fariin xeel dheero ku leh ha eegin aada manafacadsan yaa manafacadsane wax qabo way hatta marka qiyaamaha dad isleedahay uu dhici marka amalka halkaas la gaarsiiyay inaynu dadkeena ku tirtirsino war amal kala war shaqeeyo wax qabta iska wax u qabso oo adigu wax qabso tusaale cajiib abi daawud baa wuxuu soo saaraya nin dhalinyarada nabiga u yimi kaleey salaatu wasalaam waxba weydiistay deetana wuxuu ku wariyaa maxaa guriga ku yaala ninku faqiir buu ahaa dabcan idinka garan doono garaabi wuxuu guriga waxa ii yaala qidxi waxa weeye bahal madiibado kala ma hadhuub marna biyahan ku soo dhaansanaa marna waxbaan ku cunaa buur shuri ka keen qidxigii buu ku dhawaaqay yiri yaa iga iibsanaya nin baa yiri dirham yaa ka kordhinaya 2 dirham labadii buu siiyay shuri markana xaaskii raashin ugu gad midkan kalena faash ku soo iibso oo hadaabina aniga ay keenana daabay faashkii buu keenay uu daabay wuxuu wakaas hadabo la araaka jumcatan usbuuciyan ku arkin usbuuciga maqnow hatta meelaha ku soo tuktukanin shaqo u xaydo meelaha ku tuko week iska damaartay isku bixisa shaqe weekii buu laba dhigay xaabadii wuxuu yimi isagoo laba go'o uu iibsado cusub wata waa usbuuci kaliya xaaskiina laba go'o uu iibiyay oo iyaduna ay labisan tahay nin dakhli soo galo oo xisaabsan nabigu wuxuu ka waran soo warramay sida hada khayrun min an tas'ala an-nas a'tawka aw mana'uka taa iyo ina dadka saa tiraahdo oo qaarna ku siiyaan qaarna ku diidaan keeba kula quman hay noqoto laba la isku doorsan kara ma al-yad al-ulya khayrun min al-yad as-sufla marka dhalinyaro umadu inay shaqeyso oo xataa inaga lafteen markaynu soo rooxno aynaan makhaayada waqti badan ku bixinin inaan waqtigu ilaa caways aanu inoogu dhicin jadwal in la sameeyo oo wax la qabto qaar dadka uminimada ka saaro makhaayadaha ka ururiyo oo xudhiga qaar xaafadaha iyo intay ururiyaan ogaada dadka fuqarada iyo masaakiinta qaar intay banaanada u baxaan ee shaqooyin qabsado beeryar xagaaf yar guriga dhexdiisa ka sameeya oo halka wax ka soo saara inaan waqti badan bixino oo qaar wax akhriya ku diidi maysa xaragada ku diidi mayso dhalinyaranimada qodobka aad baan ugu danaynay mid kalena ninku hadduu mas'uul noqdo shaqadii kama weynaan inaga waxa dhacday ninka mas'uulkii inuu yiraahdo shaqeeyo deetana kormeer uma sameeyo iyo indhayn laakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam isaga la shaqeynay la qaadi masjidka dhisayay waxay ku gabiyeen la in qa'adna wan nabiy ya'malu ladaka minna al-amal al-mudallil wariyaareed hadaynu fadhino nabigiina uu shaqeynayo miyana amal la yaab la oo lagu luma ahayn ha ina kiciya marka qadiyada amalku runtii aad buu inoogu yar yahay cagal la istul saartay ayaa inagu batay aynu nafteena qorsheyno oo jidul sameeyno qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa weeye al-qiyam al-insaniya waxa lagu horumara umad qiyam leh qiyamku waxa weeye waxay ka damqato oo aan laga agmarin dhaqan aan loo dhawaan oo lagu safaadin oo ka yar iyo ka weyne ay wada ilaaliyaan inagu umadaha kala qiyam waxay leeyihiin qiyam iyagu ay maskaxdooda ka soo maaxiyeen laakiin inagu waxaan leenahay qiyam ilaahay xaggii ka yimi oo aan goldoloolo lahayn oo aan laaxin laga jarayn oo aan waxba laga goynayn ayaynu haysanaa ummaddu haddee waxaa horoo dhan qabatay akhlaaq lahayn oo aanay dhaqan lahayn runtii meel gaari mayso dhaqanada waxa ugu horeeya al-amaana dhaqanada kaloo dhan waan dul cararaya laakiin amaanada waan dul istaagaya al-amaana waa keen wax ku noqonayno waayo ninka ugu hooseeya mu'asasad kastoo la joogo ka soo qaad
caamilu nadaafa qofka nadaafadinaya iyo ka geedhkaa jooga ayaa nagu naqaana inuu yahay ka ugu hooseeya masanjarka yar la diranaya ee fariimaha iyo arrimaha loo dhiidhiibayo. kuwaasi hadday khiyaamo bilaabaan laga tab bixi maayo, laga tab iyo xeel bixi maayo. waayo dee kadinkaa hadduu musuqo oo cidduu doono soo daayo waxa weeye waa kharimaysa. hadduu xamaamkaa la maydhayo masuqdo oo dawada iyo alaabta la marinaya ka kala reebto yaa ogaanaya. ammaano laga maarmi maayo. kaa ugu hooseeya ilaa kaa ugu sarreeya ammaanay u baahan yihin. ammaanada waxa u baahan ka soo sharaxaya ee la inankan ii shaqogee muxuu u baahan yahy inuu aamin yahay, qof uu ku kalsoon yahy oo aan qabiil ahayn oo aan garab ahayn waa inay tahay ammaanayn u baahanay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay, waxaa la weydiiyey saacaddu waa goorma, hal qadiyad buu ku xidhay. wuxuu yidhi idaa dayicat alamaana fantadir isaaca, marka ammaanada la dayaco saacadda xilligaas sug. su ninkii wuxuu weydiiyey oo waa maxay ammaanada la dayacaya? suu yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahli fantadir isaaca, marka qof walba meel aan u lahayn la dhigo. waayo ammaanadu waa arajul munaasib fi lmakaan almunaasib, qofka munaasibka ah iyo meeshii uu. laakiin yaa rag wax la cuni kara iyo yaa rag iska celinaya iyo yaa inaga maraya iyo yaa wax ka soo ridanaya. ma wuxuush wax soo kala ridanaysa? hade wuxuush bay meesha ka ogyihin wax kala ridanaysa. markaa nin aan miciya lahayn waxa weeye meesha loo tiran maayo. waaya ammaanadu waa aad bay daruuru tahay. ammaanaduna ilaa iyo kelmaddaa aan jeedinayo, ilaa qofka maxaa la yidhahdaa macallinka ardayga u dhigaya, ilaa ardayga lasoo dhigay waa ammaano. hadduu dhexda ka leexdu yidhaha waan soo dhiganay, dee ammaanidii waa khiyaane. macallinku hadduu maadadii wada gaadhsiin waayo oo bar isaga sheekeeyo, hadday sheekadu tahay sheeko wax lagula baxayo maskaxda kubcinaysa haa, laakiin hadduu waxaa maala yacni u sheego waxa weeyaan ammaanadii waa dayaca. hadduu buuxiyuu yidhaa nijaarka aynu u diran, hadduu yidhaha qowda maqashii. dhakhtarku hadduu dawo aan adiga ku anfacayn laakiin farmasigiisa taallo kuu diro, he laysa biaamin, waa khaayin, uu ku khiyaanay. meelaan ku xanuunayn hadduu kaa baadho oo dhaa shaybaadhkaan xoojinaya, imama xanuunayse waxa weeyaan waa ammaano daro. baashu way qulqulaysaa, meel walba way gaadhaysaa ammaano daradu. sidaa awgeed ammaanadu waa muhiim. itigiskan ay sheegaan wax kale ma ah. qofka in ammaano la baro oo xataa marka uu cilmi kasta baranayo, injineerka la baro ammaanadii. waayo haddii kale sabadda hadduu inagu khafiifiyo dee boqolaal iyo boqolaalba isku dumaya, khatar baynu gelaynaa. marka ammaanada waan xoojinayaa. midnimada alwuxda, tacaawunka watacaawanu cala albiri taqwa waa qiyam. nebigu wuxuu tilmaamayaa sadaqada maalin walba inagu waajibtaa. maxaa ka mid a nin meel fuulay oo alaabtaa u soo degi lahaa inaad gaadhsiiso qof, inaad gaadhsiiso, inaad qof waddo tusto, inaad mid miskiin oo alaab qaadi waayey aad la hinjiso, in mid waxba samayn kari waayey farsamo ku dhaanto aad la samayso. waa tacaawun. qof waxaa tahay sida roobka da-aya oo wada maarata meel kasta anfacaya. waxaa ka mid a xayaaga iyo xishoodka oo u baahan nahay rag iyo dumarba. waxaa ka mid a runta oo aanay ammaanada kala maarmin. khiyaanada iyo beentuna waa walaalo, waayo waa laisku asturaa. marka khiyaamada samaysa maxaad u baahantay? maradii la saari laha, marada la saaraya waa maxay? waa beenti. laakiin qofka maaragtay aaminka ahi uma baahna been, waayo warkiis waa ka shams, sidq waa caddaynaya. waayahay ashajaaca, geesinimada maaha tii dagaalka. shajaaca adabiya, qofku inuu runta sheegi karo, qaladkiisa qiran karo, naseexo gudbin karo, aanu la gabanayn, addoon aanu ahayne qof uu yahay. waxaa ka mid a karamka iyo deeqda, inuu deeqsi yahay oo ummadda wax u tari karaa, inuu naxariis leeyahay, inuu dadka waxay ku kala mudan yihin yaqaano. laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana, ka yarna ka aan u turin annaga naga mid maaha, ka weyna aan ixtiraamin. isku soo xooriyo hadalkayga oo runtii aanan aada u kala habaynin. waxaan doonaya inaan ku soo gunaanadoon idhaahdo arrimaha lagu horumarayaa way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay intii ugu mucda weyneyd baynu tilmaanay. intaa markaynu dib isugu noqonnana waxaan filaya nin walbaaba inuu maskaxda mar walba u celinayay meydaankaynu joogno iyo adduunka halkaynu kaga dhaqannahay, dabeetana uu ku eegayay. marka waxay noo soo baxaysaa, ma waxaynu u baahan nahay in laynoo duceeyo waxba inagama xumo illa saxri lagama jiro hore u soconno, mise waxaynu u baahan nahay inaynu istaagno wax isweydiinno itijaahaynu u soconnaa.
ma horeynu u soconnaa mise cidlaynu ku gaardiyeynaayo barteennin baynu cagaa ku celcelinaynaa deetana way xiiqsannahay ninbaa wuxuu yidhi haddii aanoo fadhiyaan caraabi buuri markaa shawuxis arkay isagoo gaari saaranoo waanoo fadhiya waarma inagoo fadhiyanoo caraabaynaa kooba dheh mise saani baynu u soconnaayo dad meel higsanaya ayaynu nahay waxaan kaga baxayaa baaraka allah fiikum hadalkayga waxaan uga jeeday buhabuhaynaya inaan la qiimeeyo inaan dhallinyarta maskaxdoodana kaga tago su-aalo hadhowta ay u doontaan siiradii xabiibkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh af walba way ku qoran tahay halka ay kala soo baxaan inta dambena waxaanu daynayaa kolley 7 daqiiqo harsan 7 daqiiqo harsan niqaash iyo insha allah wixii su-aalo ah ilahay waxaan weydiisanaa wixii aan asiibay allah inaga aqbalo wixii iga dhacayna ilaahay iyo subxaanahu watacaala ha iga dhaafo sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed subxaanaka allah sheekh shabcaan aad buu wanaagsan yahay ilaahay kelmadda wanaagsan ee noo sheegay waxaynu waafaco kuwii qaatana markaa ilaahay naga dhiga markaa ee weeleeya ee halkaa ay fadhiya aanu feeqin waxaynu gelaynaa qaybtii dambe markaa su-aalaha waxaynu isku dayi doonaa qofkii su-aal haya inuu halka soo yaro istaago kabacdi su-aasha si toosa u galo isagoo markaa soo koobaya maadaama waqtigu nagu yeri sheekha iyo dhalinyarta waa salaamada run ahaantii mawduuc fiican oo ina anfacayo sheekhu noo sheegay intaa kadib su-aal yar baan sheekha weydiinaya su-aashayda koobaad waxa weeyaan jahliga iyo cadaalad darradu ma isla taxalluqa taasi waa su-aal si yaroo kalena waan kugu darayaa hartii sheekhu waxay ku darsatay taagnidii kiniisad baaba laga furaa cadaalad darrada iyo jahliga maxaa ka dhexeeya waxaan isleeyahay waa qariinaan laba isku xidhan oo aan kala maarmin waayo dulmiga waxaa loo galaa laba siyaabood mar waxaa loo galaa adoon garanayn inuu dulmi yahay oo cilmi darra haysa marna waxaa loo galaa adoo garanaya laakiin badheedhaya diintuna labadaba jahli bay tidhaahdaa labadaba jahli bay tidhaa salafkuna waxay ku ijmaaceen qofku markaa uu dembiga ku jiro cilmi kasta ha lahaadee fa huwa jaahil inuu yahay jaahil waayo wuxuu garan waayey wixii markaa la gudboonaa markaan been sheegayo waan garanayaa beentu inay xaaraan tahay laakiin kol haddaan sheegayba maxaan jaahil ka ahay wixii ila gudboonaay oo ah inaan ka badbaadon iska ilaaliyo marka labada goorba jahliga iyo dulmigu waa walaalo waa mataano nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo koobay dadka qudaada ee waxgarsoorayaasha ah inay 3 xaaloon yihiin qolaa ka badbaada labada kale waa jahalo wuxuu yidhi inama alqudaatu 3 2 fi nnaari wa 1 fi ljanna garsoorayaashu waa 3 laba naar galay midna waa badbaada ama alladii fi ljanna farajulun carafa alxaqa waqadaa bihi ninka xaq garanaya kuna xukumay kaasaa badbaaday ka kale naarta ku dhacay muxuu noqonaya ugu horeeya alladii qadaa carafa alxaqa wajaara fi lxukmi wuu garanaya xukumkii laakiin uu garab maray kaa garab maray maxaanu idhi waa jaahil weligiiba ha garto jaahil baa la odhanaya ka kalena alladii qadaa linnaasi calaa jahlin dadkaba isagoon garanayn buu meesha iska fadhiistayoo waa mutuhinaya kol haddii sidaa tahayna waxa weeyaan waa jaahil marka waa laba aan kala hadhayn sidaa awgeed si aan uga baxno waa in cilmiga iyo cadaaladda la raadiyaa su-aasha naasir baan u imanayaa maxay dadka inta ugu jaahilsan ee ugu maangaabsani ay noo hogaamiyaan runtii waxaan isleeyahay 2 arrimood mid weeyaane ummaddu haddaanay dhisnayn oo ummaddu iyadu ay dhabaqsan tahay dhabaqsanaantaasu ka faa'iidaysanayaayo waa daadkaa xoorinayaana wuxuu sarraysiiyaa xumbada macdanta iyo wuxuu soo qaadana hoostuu mariyaa haddii laakiin hadhow la kala dego xumbaduna way zuuli maxaa la helayaa wixii ku jira iyo biyo saafiyaa la helayaa horta taa way ka faa'iidaystaanoo kamaa takuunu yuwallaa calaykum ummaddu siday tahay ayuunbay bannaanka soo dhigtaayoo qofkan aad arkaysaa waa ummadda suuradeedii weeye ummadda markii laysu geeyo sawirkii ayaa kan ah sidaa awgeed baa ninbaa wuxuu ilaaqay cali ibni abi taalib radia allahu canhu buu ilaaqay oo ilaaqda lama waayo deete wuxuu uhi cali ow abubakar iyo cumarna arrimuhu waa u toosnaayeen oo isugu dubadhacsanaayeen adigana arrimahaagu tirbiica iyo tuuray kale leeyihiine sidee wax u dhaceen cali weerar baa ku dhacay soo maha laakiin wuu iska celiyo wuxuu yidhi abubakar iyo cumar anigii cusmaan baa raciyad u ahayn
marka arrimo waxa u hagaageen anigii Cusmaan iyo ragga la midka ah ayay maamulayeen ninka Cusmaan iyo Cali haystaana wax walba u hagaagayeen adiga iyo wax kula mid ah ayaan u taliyaa adiga wax kula mid ah u taliyaa bari qabo marka rag galbeed baa u socota marka maxay hagaagiba taas waa qodobka labaad waxa weeye qabyaalad bay naga hoos galeen qabyaalad ay naga hoos galeen qabyaaladu waa kafarka lagu qariyo wax kasta oo qurun oo xun waa ninka wuxuu oranayaa kursiga yaale reehebel oo reehebel ma ahay ha hadaba wanaagayga xumaanteed halka dhigo magac maxaa lagu helay ya reehebel qof wanaagsan bay soo sharaxay fa kharaja biqawlina wax lagu saaraya horta inaga ma hada wanaagsan tahay inaga la rabaayo ilaa inagu namatalayaa inaga la rabaayo xageed noo jujuwaysa nin inaga ina matala ayaa la oranayaa tabatana keen xunbay ayay u dhiibayaan marka labada arimood waana isla imanayaan basleeya way qasnaanta waxa keenay qabyaalada hadii dib ugu noqonana jawaabteedu mid bay noqonaysaayo war bahashan ina qastay ee xagga kale inoo rogtay ayaa la doonayaa in laga badbaado marka barakallahu fiikum mawduucaasina waxaan filaa mawduucyada aad idin bisile ama ka doodeen ama laga doodi doono weeye qabyaaladu halkeena la maraysaana waa meel anagu inta horta adaadeeda ah aanan hore u arag wax la mid ah waanan kula kaftamaan dhalinyarada waxaan ku dhahdaa ninka cusbitaal xaafadoodii ku dhashay ee umulusadu xaafadooda ahayd ee abtiyaaladii xaafadii yihiin ee malcaamad xaafadoodii ka baxay ee iskuul xaafadoodii galay ee jaamacad xaafada ku taala ka baxay ee makhaayadii xaafada fadhiistay masaajidkii xaafada ku tukaday ee sheekhay xaafada u khudbaday ka warrama kaasi cayn ku noqonaya soo jiirhaan ku weynaaday ma caalam waxba kama ogade dadka wuxuu moodayaa xaafadaasu moodaya bal markaa indho haydin dilaacaan marmar tallaaba oo xaafadaha ka soo sheekeeya oo dadka bartade asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekhu aad buu mahadsanyahay weli markaa su-aalihii bay ku guda jirnaa ciddii kale markaa su-aal haysta waxaan doonaynaa dadka inaynu jaanis siino dadka ma aha un dadka mar walba in wax iyaga loo sheego iyo markaa inuu soo celiyaa iyaga jaanis la siiyaa ciddii markaa su-aal haysta halkaas soo istaagto way soo dhaweyn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال يرى كوبان بان دونيا الشيخ هنا ويديو iyo dhamaanteen ba inaynu inaga lafteena wax ka soo baarno waxa laga yaabaa dadku markay dad walba mabda'oodu ama dastuurkoodu waxa had iyo jeer yahay waxa ay ku dhaqmaan ay ku nool yihiin inagana ummad islaam baynu nahay si markaa islaamnimada ku dhaqankeedii la inooga leexiyo waxa la inoo sameeyay qodobo la yiraahdo loo bixiyay magaca dastuurkaana waxa lagu qancinaya haddaad tiraahdo war waxan maxaa baahida loo qabaa muxuu ahaa sawtan aayad iyo xadiiska waafaqsantay adigu wax diinta islaamka ka soo horjeeda miyaad ku haysaa meesha dabeetana halkii la oran lahaa xukunka caynka iyo caynkaasna la inoogu bixiyay wax la yiraahdo qodob halkii la oran lahaa aayadaas sheegaysana farqada inoogu bixiyay haddaad istiraahdo warbal waxaan ku yarno inkastoo aan galabto aan dastuurkii waxa aan aqoon lahayn haddana ay xaalad jirta tahay ma suuragal ma tahay in dadku ay qawaaniinta iska samaystaan oo maxay hayday ay ku dhaqmaan waxay la tahay inay diinta kolleyda magaranaysa masaalaxa jirta laakiin ma tahay dariiq hadhow toole dadka had iyo jeer siyaasadeena faraha ku lahaa ay ku keeni karaan in hadhow toolena kuwa aayadan iyo xadiiskan ka baxsano hadhow toole marka dadkan iskala qabsadaan wax dastuur leeyahay wax diin leeyahay kala jira ay iman karto in hadhow toole dastuur qaldan dadka maxay hayday lagu maamulo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي خالد أحمد جامع سؤال هذا يرى قند الدواء أنا صاكو ويا وحوينا الشيخ متشرا وحياله نجا عاونا يا قفك كو عاونا إنه جوليستو أما قرن كلفتر كيسة كو عاونا يا إنه جوليستو وهذا تراعي كرتو هرلو سو تجريبي سؤال شو اسمه واضح بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وشر مارك محمد عبدي الشيخ أدبان السلام يا إيو لما اليارد كسوق بشيء goobtan su-aashan ku weydiinaya sheekh waxa weeyaan xaggii cilmiga waadna tustay oo kabashada cilmiga gaaban waa lagu kadeedmaa taasaa inooga markhaati ah oo waa tii maadiga ahayd xaggii diiniga haddaan noqdo taa diiniga way ku wanaagsanay baad kusoo koobtay laakiinse waxaa jira dad yaroo kooban oo intay bayskoodii hore diiniyan ahaa
hase ahaatee dhexda kaga dhaqaaqay sidoo kalena ku dhex waashay social media iyo ummadda dhexdeeda oo taa halkaa kaga hadhay way jiraan oo way buuxaan taana baldawadeedu maxay noqonaysaayo dee dadkii diintii ilaahay faraha ka qaaday ee hadhow toolena dee ku dhex waashay meel alaal meel dhaqaaqaan markay aqoontii kala dhex galeen dee baldawadoodii baan sheekh doonaynaa taane haltaan noo timaa insha allah mahadsanti uu ka saareeyey waa runoo ummad kastoo adduunka joogta waxay ku noolaayeen ay ku dhaqmayeen baa dastuur looga dhigaa ummadahan markii laga adkaaday khilaafadoodiina la burburiyey ayuunbaa ugu horreysay dastuur loo soo waarido oo dibadda looga keeno waxaan sidaa bariiska loogu soo waariday ayuunbaa dastuurkana loo soo waariday iyo maryaha iyo kabaha kan imka aynu haysanno ama dastuur kastaana labunbuu u qaybsamaa gaar ahaan markay inagu islaam nahay waxaanu ka eegnaa laba dhinac dhinaca koowaad waxa weeye waxyaalo diinteennu ay habaysay oy ka faaruqday oy meel ku tiirisay iyo arrimaha laynooga tegay layidhi idinku habeeya dadkuna way isku qaldaan xataa qaar culimaa isku qaldaa arrimaha qaar baa inaga laynoo ogolyo laleeyahay habeeya oo nidaam hoosaad iyo xeer hoosaad ka sameeya markaan labadeena dukaan wada furanno aa idinoo sheegi maysa inta bilowda lagu xisaabiyo iyo percentagekeenu kala qaadanayno iyo ka gelinka horeyn iyo ka gelinka dambe haynaya arrimaha maxaa la odhanaya ya antum aclamu biumuuri dunyaakum madaxweynaha somalilan inuu 4 sano joogayo 5 sano joogayo in 10 la siinayo aayadinayno inagu waajibin mayso midna inoo diidi mayso somadan garan arrimaha noocaas waa la habeyn karaa maxaynu ka dhiganaa qolada la yiraahdo ahlu shura ama baarlamaan bixi ma 70 ma 50 ma 60 waa waxyaalaha diintu ay ka aamustay oo nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri ilaahay buu ka soo warinaya xadiisul qudsi oranaya ma amartukum bihi fa'tu minhu mastada'tum wama nahaytum anhu fajtanibuhu wama sakatu anhu wixii ilaahay ka aamusay rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tasalu anhu arrimaha laga aamusay inaga leeno daay hadaba waxa la isku qaldaya arrimaha waa la distooreyn karaa waa la habeyn karaayo laayaxad iyo xeer hoosaad baa laga sameyn karaa gobolkaasi ha soo doorto intaasoo qof qabiil hebel ha soo doorto wax mushkilada ma leh intaa ha la isu kala bedelo aqlabiyadda ha lagu rido waxaasoo dhan waa iska furan yihiin laakiin halkay sartu ka qurunta waa maxay waxyaalo diintu ka faaruqday oo meel ku tiirisayba la soo gelinaya haye sariiqada iyo tuugada maxaan ka yeelaa siinada maxaynu ka yeelaa khamriga maxaynu ka yeelaa kan kale maxay nooga xeera labadii baa garhka la isu gelinaya dee tax lagu odhanaya diinta ma khilaafsana diinta oo seen u khilaafsanayn bal culimmadu waxay ku leeyihin haddaad tiraa gacantaa la goynaya oo aanad aayadda cuskanin caqligaaga cuskato ayaa diinta kaga baxaysa haddaa xukunka baad sheegtay laakiin dariiqaad soo martay baa qaldan waa inaad tiraahdaa xukunkiisu waa kaa oo Allah sheegay laakiin tira anaa helayo xalay baan u soo jeedo bunka u cabay waxa weeyaan ma noqonay markaa diin alle muxuu noqonayaa dooqaagi ma noqonay maskaxdaadii markaa qadiyadda aynu kala fahanno oo wixii diintu ka hadashay iyadoo dastuur ugama baahna uu qoray kutubtii waa taalla wixii laakiin nolosheena caadiga ah ee caalamkan xilligan aynu joogno xadiisku ka aamusay xadiis baa yiri wuxuu antum a'lamu bi umuri dunyakum arrimaha diinta arrimaha dunyada idinku habaysta waxa suurtagal ah inay deewabayno muuseeyeen bayimka waa ka buuxaaye laakiin hamoodi imka inay u sii socdaan way hayaan marka lugay qodobka waxaan ku xukunay 300 iyo kada waxaan ku xunay faqradiisa ka qaybtiisa wax kala ma aayadana marka dambe la sheegaya goor ay xeedhay farnaal kala dhaceen waafaqsan aayadda maalinta waxa la yaabeen ka qosliye wuxuu aayadda ku taala suuratul baqara 55aad idaacadan dhageysanay waan yaabay 55 kuma dogeyn xukune waan furay reer bani israa'iil ba ka warramay wallahi waan furay kitaabkaan eegay marka aayad looma jeeday waa baarasati iyo xumad jibin wey umadu halka yar xanaaqlay baa la maqashinay waa ka quraankeena dib u fariisanay isagoo xanaaq marka taas waa taa qodobka ku xiga walaalka kaleena weydiyo waxa weeye maxay ku najixi karaan qofku iyo dadku iyo ummado waan ka hadalay laakiin qofku muxuu ku najixi karaa anu waxa isleeyahay qofku labadii qodobuna ku gaabino war badan ma haynee inuu kaana dhaluman jahulan labadii waxa la dagaalamo dulmigana ha la dagaalamo jahligana ha la dagaalamo taana soo gaabinaya alghaayatu tubarrir wasila
waxaa odhan jiray dadkii aan wanaagsanayne islaamka aan ahayn baa odhan jiray ujeeddadu hadday wacan tahay meeshaa doonto sii jibaax mushkilad bayna gelinaysaa ujeeddadu wanaagsan tahayoo gabadhani oorideeday ku dambaynaysaa haye aan sidaan doono ka sii yeelo algaayatu tubariru alwasiila ma saxan tahay maya haddaba shareecadu waxay tidhaahdaa alwasaa'il laha axkaam almaqaasid cagsigay tidhaahdaa wasiiladu waxay ku xidhan tahay qasadkay la xukun tahay haddii qasadku wanaagsan yahay wasiiladu waa inay wanaagsanaataa haddii qasadku xun yahay wasiiladiina way xumaanaysaa culimmada le ha la maro doorashooyinku sidaa ma yidhaahdaan ee waxay yidhaahdaan haddii marin kasta inaga soo xidhmay marin kasta hadduu inaga soo xidhmay tan ma ku daynaa bay ahayd tan ma ku daynaa culimana waa fadwoodeen ibnu baas iyo ibnu cuseyr rag baa u fadwooday laakiin dee mee taariikhdaa beenisayoo wadinka og markii hore taarikho horaa jiray laakiin meediyaa ugu dambeeyey kaa la sii sido mursi baa qabsaday oo dariiqii maray oo dowladaha islaamka ama carabta ugu weynaa qabsaday sanad 12 bilood buu haye xaaladdu say noqotay xaa kalaa loo rogay algeriana waa kasii horreysay turkiya kasii horreeyey marka howlo badan baa jira ee ummaddu ilaa ay bislaato dusha ka hagaajidu inama anfacayso hoostaa laga soo bilaabaa kulamadeennuna waa waxay daaran yihiin haddii hoosta laga soo hagaago wax badan baa hagaagaya ninkan iminka jooga turkiyana howluhu wada waa kaa aada u mutaabiceeya oo eega waxyaala badan salugtaan waa arkaysaan laakiin ha ku boodin oo ha dhalinyaro noobina waayo howlo badan oo hoosaa jira qur-aanka la kabcinayo waxaan shalayta daawanayay arday yaroo baaskilada loo qaybinayo ninka 40 cisho jamaca ilaaliya masaajidkii baaskilada tubayin wada barooya 40 maalmood ninka jamaca ilaaliya maalin laga waayo maxaa la siinayaa xabad baaskilada dee wuu iskala macaansan doona hadhowto wax ka weyn buu sugaya iska baran doona insha allah ummadda in hoosta laga soo bilaabo ayaa ka wanaagsanoo halkii nebigu ka bilaabayna ah qodobka ugu dambeeya waxa weeye mid baa ka dambeeye haddii lala xarbiyayo cilmigii iyo cadaaladiiba maxaa inoo dana maxaynu yeelaynaa runtii waxa weeye rag fadhiistay unbaa ugu darane ha lagula xarbiyo haddii lagula xarbiyo inaad nooshay tilmaamaysaa nin tahay waayo haddaan lagula xarbiyaynin waxa matiid waa lagaa faaruqay markaa kole haddii lagu hortaagay aadna wad rag iskuraye maalinunbaad adigu rogan doontaa waayo waana la ogyahay oo ninka aan quusanin ayuunbaa ragga marka ugu dambeeya ka badiya markaa taanaynu sugnaan qodobka ugu dambeeya waxa weeye ragga cilmiga meelaha ku haafjaray maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa idinku waxaba leedin meelaha ka noqotaane dib ugu noqdo raadka bartiidii ku dambeysay dib uga soo bilaaba waayo kaynagu arrintu ku adkaan lahayd waa kaan weligii bilaabin laakiin kale wuu garanaya bartii uu kaga soo leexday wuu garanayaa dib ugu laabo maanta dhowdahaye halkii ka soo bilow weliba waxyaalahan social media waxay u baahan yihiin kulamo dheeraadee wax kastoo tankiisa laga badiyaa wuu xumaadaa caanahaasaa ka mid iyo cunnada haddaad tankeeda ka badiso cudurayeenkaaraad geli qadiyadana waa la mide wax kasta aynu muctadil ka dhigno soomaalidu inuu wada tuuro iyo inuu ku madago-o oo ku hunguri beelo ugama dhaxayso marka ictidaalkeen ogaano ilahay waxaan weydiisanaynaa fadhigeena fadhi khayr qaba allah ka dhigo culimadan kale uga baxaya wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay sheekh shabcaan sida wanaagsan ee uu soo koobay su-aalahan uga jawaabay barnaamijka intaana soo xidhan waxaan doonayaa sheekh ibraahim oo ka mid ah madaxda maaxda aqoonta inaan u dhiibo oo markaa eraya labayna yidhahdo بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحاول إصلاح وقتي وعد ماضيه أنا ستيج كو حنوصو فريستون قرحين يا شيخ إيو محسن أنا ستيج كيرو قرحيو بارك الله فيكم كنتي دوني ما إيو ذرركا إيو حيابها قروح بدن لا شيخ وينو شيغا إن أن كدق دقا مسكحدين إن أكو ساحتان أو نين والبا ويسير هذو هالكيبات هرماركا كبلاابيسا أيا في عن هدان wax ku daray waxaan oran lahaa haddaynu horumar doonayno idinkuna aad dhalinyar horumarkii u tihiin isku mid ah waxaan oran lahaa ragga halkaa fadhiya waa rag malaa 25 jirku ugu weyn yahay badankooduna ay ka yar yihiin haddaan maaragtay indhuhu aanay qaldayn waxaa kow ka ah horumar in aynu waqtiga tartiibsanno waqtiga aynu haysanno wax ka weyn ama waddo ka weyn ama waddo ka wanaagsan oo aynu u marayno horumar ma jirto waxaa la yidhaahdaa waa waxa ugu qiimaha badan ee ugu qaalisan ee aad haysataa ma aha lacag
maaha guri maaha gaari waa waqti maxaa yeelay isaga nano second oo ah secondka marka loo qaybiyo trillion dee cid ku siin mayso qofka kuugu jecelay ku siin maayo lacagna ku iibsan maysa horumarna waxaa lagu gaaray inaad waqtiga uun dadku waxay ku kala dheereeyaan sida ay waqtigooda u tartiibsadaan taasi waa mid waqtigaaga tartiibso oo ha u tartiibsanin haddaad eegto maalan social media iyo waxyaabahaasoo sheekhu uu yidhi waxay u baahan tahay waqti annaan ku waafaqsanay waqtiga inteebaa kaaga baxda inaad social media iyo chatting aad samayso intee cibaado kaaga baxda intee buug nafci leh kaaga baxda bal adigu waxaad samaysaa isku samee analysis iyo odoros waxaad ogaanaysaa inaad waddadii dayacan cagta saartay waxaan rajaynayaa in sheekha iyo nasaaixda wanaagsan ee qaaliga ahi ay naga soo celiyaan waddada dayacanoo waddadii faa'iido badan aynu cagta saaro caawa qof waliba intuu isxisaabayo yidhahda halkaa maanta ka bilow ama dib ugu noqo halkii kuugu dambeysay taasaa markaa lagu kala hormari doonaa oo inankii iyadoo loo baahan yahay gacanta la isqabsado aad ama qofka kaga hormaraysaa ama uu kaaga dheeraynaya oo waqtigoo tartiibsato iyo inaad hadaf iyo ujeedo sawirato iyo vision aad tooganayso tiraahdo sanad baa ku soo dhaafay ama 6 biloode bartilmaameedka aad xadidatay inteed u jirtaa in la isxisaabiyo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi